waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed in 30 sano ugu dambeeyay ay ku jireen halgan ku saabsan sidii ay u heli lahaayeen dowlad ay ku nastaan oo maaragtay badbaadisa masiirkooda iyo ayahooda ummadnimo. annaga haddaan nahay dad Soomaaliyeed waxaan nahay ummad Soomaaliyeed oo ay ka dhaxeeyo isir oo uu ka dhaxeeyo diin iyo dhul intaba ama deegaan ka dhaxeeyo. laakiin waxaa naga dumay dowladdii saddexdaasba noo ilaalin lahayd ayaa naga duntay oo isirkeena Soomaaliyeed oo dhaqankii iyo luqadii iyo xeerarkii iyo xiriirkii bulsho ay diinteena islaamka ee xaniifka ahayd iyo deegaankii aan degenaynayna mideeyey noo ilaalin lahayd oo madax bannaanideeda gudaha iyo dibaddaba intaba ilaalin lahayd yaa naga dunto baadigoob ugu jiray 30 sano. laakiin 30kaas sano dadka Soomaaliyeed uma aysan istaagin dowladda ayagaa waxay dhisteen noloshooda qaybaheeda kala duwan ay dhisteen oo dhinac walba ah. waxaa laga yaabaa 10kii sano ugu horreeyay in dadku ay ku jireen dagaal sokeeye iyo colaad gudaha ah oo dalku ay xabad ka dhexay ka socotay oo la kala qaxayay dadkii xilligaas u joogay runtii oo murugadaas iyo xanuunkaas soo markhaatiga ka ahaa u noolaa ayaan ahay. xilli runtii waxay aad iyo aad taariikhda Soomaaliya mugdi weyn gelisay oo dadku ay isku dilayeen reero iyo qabiilo ay isku dilayeen. markii laga soo baxay 10 sano kadib la isku dayay 2000 in salka loo dhigo dowladnimo Soomaaliyeed intaas la raadinayay oo dalka dibaddiisa inta ugu badan shirarka ay ka dhacayeen ama Ethiopia ama Kenya ama Qaahira ay ka dhacayeen intooda badan. ugu dambeyntii cagta la isugu tago dowlad iyo halkaas ugu soo yagleelay oo magac dowladeed wadata laakiin awoodii dowladda aan lahayn. laakiin nolosha kale dadku ayagaa dhistay hadday tahay waxbarasho caafimaad intii tabartooda ah ma badna laakiin intii tabartooda ah hadday tahay adeegii guud ee waxbarashada iyo caafimaadka haddii ay tahay noloshii kale ee isgaarsiintii iyo bangiyadii iyo xawaaladihii iyo maaragtay noloshii qaybihii kale oo dhan dadka xataa kaabayaasha dhaqaalaha jidadka iyo ayagaa dadku dhisanayay iyo buundooyinkii intay iskaashadaan iyo ayaga dhisanayeen. 30kan sano waxaa soo noqotay nolol ay dadku mar dambe inay dib u bilaabaan noloshoodii ay damceen. dowladduna mar kasta haba taag darnaatee laakiin tabarteeda way soo kordhaysay way soo xoogeysanaysay. dowladda nafteeda maalin ka dambaysa tabarteeda way soo kordhaysay. tusaale ahaan dowladdii aniga aan ka tirsanaa tabar saasa ma lahayn oo aan wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ka ahaa masaariifteeda dhanba dibadda laga bixinaya tabar saasa ma aysan lahayn. waxayna ahayd dowladdii ugu horreysay maxaan kuu sheegaa ay ku guuleysatay inay dalka ka bixiso kumeel gaarka oo doorashadii ugu horreysay lagu qabto gudaha dalka lagu qabto ayay ahayd oo dastuur kumeel gaarani la sameeyo axadii kumeel gaarka ahay laga baxay. intii wixii ka dambeeyay dowladihii taa ka dambeeyaba dowladdu way soo xoogeysanaysay. mar kasta ay dowladdu tabar soo yeelato ama ay taag soo yeelato hadday tahay dhinaca aqoonsiga adduunka la aqoonsan yahay hadday tahay xagga resourceka ama dhaqaalaha ay heli karto hadday tahay awoodda ciidan ama awood ay yeelan karto dowladdu markay soo xoogeysato uma dhaqmaynin dowladuhu uma dhaqmayaan inay ka fursadaan wixii markii hore ayada dumiyey oo ahaa ku tagrifalka awoodda oo ahaa eexda oo ahaa maaragtay qaraabakiilka qabiilaysiga ku dhisan oo danta qoys ama qaraabo ama ehel ku dhisan ama asxaab waxaan nepotismka la isku yiraahdo eexda ay soo hoosgelayso. wax allaali iyo wixii markii hore dumiyo salka u dhigay iyo dowladdii haddana markay soo xoogeysataba awooddeedii waxay u isticmaalaysaa wax allaali iyo wixii ayada dumiyey. dhinacaas waxaa dhinac socday dadku inaysan abaabulnayn maadaama dadku ay 30kii sano lasoo dhaafay ay si shakhsi ah oo fardi ayaga wax u dhisanayeen oo noloshooda ay si fardi u maarinayeen ayaga naftooda dhaqankooda iyo culture-kooda iyo noloshooda waxaa ka baxay in si wada jira ay dadku wax u qabsadaana ka baxday oo hay-ado ama ururo ay ku midaysan yihiin ama kuwo xirfadlayaala ama kuwo bulsho ama kuwo diineed ama kuwo qaabkay rabaan ha u abaabulnaadaan abaabul kooxay ama tiim ama urur ku dhisan dadku ma uusan jirinin. marka dowladdu ay abaabulan tahay ayna awood helaysa maalin walba ayna dhaqmayso si takrifal iyo eex iyo musuqmaasuq iyo awood sheegad ku jiro markay u dhaqmayso dadkiina ay yihiin shakhsiyaad aan nidaamsanayn
oo organize garaysanayn oo keligood keliya qof walba keligiis oo raba inuu noloshiisa si fardi u noolaado miisaankaas wuu kala badan yahay marka dhinaca kale hay-ado dowladeed oo dhisan oo isdheelitirayana ma jiraan oo baarlamaankii ama garsoorkii ama hay-adihii kale oo isdheelitirayana ama ciidankii oo ka madax bannaan hoggaankii markaas dalka loo doorto ama heer federaal ama heer dowlad gobole ahaadee asagiina ma jiro marka qofkii xukunka loo dhiibaa wuxuu samaynayaa takrifal waxaana jiri marka awood dowladeed oo dheelitirtana ma laha awood shacab oo abaabulan oo dheelitiri kartaane oo ka baqayana qofkii ma jirto marka qofkii wuxuu noqonayaa waana sida ay kalitaliska uu ku samaysmo oo noqdo yidhaahdo anaaba yaa aniga daba hadli kara oo adiga yaa tahay ama maxaa samayn kartaa maxaad iga tari kartaa waxaan rabaan aan ku dhaqmayaa marka taas marka waxay keenaysaa inaan iskumatalistalnimadii aan ku noqono marka kuma qasbanin inaan u dhexayno kalitalis iyo iskumataliso dad badan hadda waxay ku leeyihiin haddii inta la is abaabulo oo in laga hortaga la damco qofka awoodda kaligiis qaatay ku takrifalaya war amay nooga dartaa macnaheedu waxa waaye amaan ku noqonnaa xaaladii iskumatalisada ahayd oo hadda wax yar laga soo kabtoo laga soo roraaday laakiin kelitali sidiisaba iskumatalisow dhalaa saas daraaddeeda waxaa la rabaa marka awoodda waxaan cawada toobiga cawada aan falanqaynayno ama mawduuca cawada falanqaynayna waxay tahay si aysan wax nooga dumin saan awooddeenna u abaabuli karnaa oan uga dhigi karnaa awood firfircooni iyo karti iyo inay iska celi karto dadka xukunka haysta ama siyaasadda haysta see u noqon kartaa awooddaas iyada ah see loo abaabuli karaa oo awood nidaamsan ee u noqon kartaa intii ay noqon lahayd awood qaraxda halka marka aan cabsida ka qabnaa waxay tahay caburka iyo cadaadiska iyo dulmiga iyo awood sheegadka iyo musuqa iyo eexda guri kasta gelaya wuxuu keenayaa sidii markii horeba u duntay inay u dunto oo sida Syria ka dhacday ama Libiya ka dhacday ama Soomaaliya ka dhacday laakiin haddii awoodda shacabka la organize gareeyo la nidaamiyo oo awood nidaamsan ay noqoto waxay dhici kartaa sidii wadamada aan ku qoray wadamada East Asia oo kaleeta inay dhacaan isbedel aanan dowladdii dumin oo dhici karo marka mar kasta awoodda shacabka haddii la yaraysto iyadoo soo burqatay way imaanaysaa ma iyadoo organize garaysan oo nidaamsan oo degan oo hay-adaha dowladda dhowri karo waxa dhisanay imaanaysaa mise iyadoo wax duminaysa ayay imaanaysaa maxaana keenaya waxa marka cufka keenaya oo cadaadiska keenaya oo karka ka badinaya waa dhaqanka dadka xukunka iyo siyaasadda haysta